xog hayaa fulinta dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan ayaa xariga ka jaray xarunta caafimaad ee dhaqaajiya physiotherapy and herbal oo daweysa xanuunada neerfaha, faaliga rheumatismka, jidh xanuunka, ciriqa, dhabar xanuunka iyo samboorka. xaruntan oo ah mid ku cusub gobolka Togdheer ayaa looga yimaadaa deegaanada Soomaalida iyadoo ay yaalaan qalab casri ah oo laga keenay dalka dibadiisa, sidoo kalena ay yaalaan dawooyin casri ah oo dabiici ah. Dr. Shacayb Siciid Maxamed oo ah maamulaha xaruntan ayaa ugu horeynba faahfaahin ka bixiyay xaruntan caafimaad ee maanta lagu soo kordhiyay gobolka Togdheer. Mehradan waa mehrad ku cusub gobolka aanu waxa weeyaan furnay sidoo kale waxay daweysaa xanuunada waxa weeyaan faaligu ka koob yahay ciriq xanuun la yiraahdo dadkeena Soomaalida aad iyo aad ugu badan rheumatiska jidh xanuunka dhabarka iyo xangulaha neerfaha qaarkood marka waa physiotherapy weeyaan herbal ah oo waxa weeyaan barnaamij herbal ku shaqeysa waxa weeyaan sidoo kale waa wax bulshadu ay u baahnayd aanu waxa weeyaan markaan ogaanay in bulshadu u baahan tahay gobolka u keenay dadkuna meel kastaba uga yimaadaan iminka ilaa iyo Hargeysa ay jiraan dad yoominka jiifa oo beeshina ay arki doontaan oo Hargeysa laga keenay qaar gaashama laga keenay qaar gobolada kale Soomaaliland Laascaanood aynaba intaba laga keenay way jiraan kuwa bogsaday way jiraan iyaguna marka waxa weeyaan saasay walaal u shaqeysaa marka saasaan insha Allah taala aan furitaankeeda maanta xariga uga jaray waana meherad ugu horeysay ee noocan oo kala ah oo laga furo physiotherapy herbal ah. dhinaca kale qaar kamid ah dadkii lagu daweeyay kuna caafimaadey xaruntan caafimaad ee dhaqaajiye physiotherapy and herbal ayaa u mahad celiyay Dr. Shacayb Siciid Maxamed sida uu xaruntan loo baahnaa ugu soo kordhiyay magaalada Burco. dhakhtarkani wuxuu daweynayaa dhammaan cuduradii aynu aad iyo aad ugu baahnayn hadday ahaan rheumatismka, faaliga, ciriqa, haddii laba ku roon yahay iyo waxyaabihii dhamaa ee xanuunada noocaas la xidhiidha ayuu daweynayaa waxaana furay Shacayb Siciid. Doctorka Ilaahay ka jazaaysiiyo dhakhtarka uu keenay ee uu noo soo dhaweeyay waana xanuunada aad loogu baahan yahay maanta waad ogtihiin faaliga iyo xanuunadaas aad iyo aad bay dalka ugu soo bateen waxaana wanaagsan in waliba lala taabaqaado oo lala taakuleeyo oo lala gacan qabto waayo waxa qura ee dadka ka dhaxeeya ee gobolka ka dhaxeeya waa caafimaadka. anigu hadda waxbaan ka arko xanuunka faaliga xoogay igu dhuftado aad iyo aad baan ugu bogay yani dawadiisi ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu barakeeyo si aadaba yani qalabka yaalana waa qalab casri lagu shaqeynayo waxaan leenahay ka habsaamin ninkii cudurka faaliga qabadow ama maxaan ku raadayay jidh xanuun ama maxaan ku raadayay qabay maxaan rheumatism xanuunka loo yaqaan xanuunadaas oo dhan buu daweynaya Allaha la daweeyo. waxa weeyaan isbitaalkani laba qaybood buu isugu jiraa qaybtii masaajka iyo qaybtii physiotherapy-ga masaajku waxa weeyaan qofka maaragtay wixii jidh xanuunka iyo waxaas ama duugitaan in loo sameeyo iyadoo la isticmaalayo daawooyin herbal ah sidoo kale physiotherapy-guna wuxuu noqonayaa qaybtan mashiinada la isticmaalayo iyo qalabkan ama kicistaanka ama fadhiisadka ama dhaqdhaqaajinta ama uu qofku ku shaqeynayo. anigu wiil yar baan keenay xanuunsanaya oo dadka xanuunka naafada la nool ah run ahaantii isbedel weyn baan kaga gartay dhinacii kalena isbedel baan kaga gartay waxoogaa uu adadkaaday sidii hore in badan ayuu iska bedelay run ahaantii waa loo baahnaa waa isbitaal. dhakhtarkan waxaan oran karnaa waa mid loo baahnaa annaguna Ilaahay dawo naga siiyo dadka shimbirka Ilaahay ka siiyay ayaanu ka mid nahay dad Yurub dawo looga waayay oo yacni waxba laga qaban waayay oo iyagoo saa u dheeranaya laga soo tuuray ayaa rabbiga weyn raxmaanka halkan dawo ka siiyay oo yacni waxay u soconayeen sida dadka gawaadhida bila bareega markuu gaadhigu bareeg leh ma la qabtaa ma weeyaan ayay u soconayeen rabbiga raxmaanka dawo Ilaahay ka siiyay waa dad maanta talinayo soconayo oo waxaan ku leeyahay hamiye qalbiba u fayow oo Ilaahay maskax ka siiyay faaliga iyo heerbalka dawada heerbal oo dabiiciya oo saliideen iyo dhirteeni oo la sameeyay oo waxaan ku leeyahay hadii dawada yacni dusha la mariyo yacni dambiilaha kaas oo yaabisid yacni inanka aan walaalana inaan waan Ingiriiska mid baan keenay Ilaahay dawo ka siiyay dawada markaan inanka u marinay aniga gabadhu xanuun jireen kulay inta ka qabtay iyo dawo iyo caafimaad inta ka qabto dharkan waa dharsan sheego dadka ku dawoolan ayaan ka mid ahay anigu waxaan hay dadkii keenay dadka xanuunsanaya kuna hayay muddo imka 2 bilood alxamdulillah aad buu fiican yahay uu socdaa uu hadlaa ma sha Allah dawo ka helay dawo wanaagsan oo wacan oo tayo leh ayuu taala.
gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan isagoo bulshada reer Burco la wadaagay xaruntan ku cusub gobolka Togdheer ee lagu daweeyo xanuunada muuqaalka dureed sida faaliga neerfaha rheumatismka iyo jir xanuunka. goobta tan oo ah goob caafimaad magaceedana la yiraahdo dhaqaajiye maanta waxay ku soo biirtay magaalada tan Burco waxay ku soo kordhisay waxtar weyn marka hore milkiilaha meherada tan inagu soo kordhiyay ee magaciisa Shucaab la yiraahdo waa u mahadnaqaynaa waana soo dhaweynayna waayo wuxuu soo kordhiyay goob caafimaad meelaha caafimaadkuna waa meelaha ugu daruurisan wuxuu kaloo ku darsaday xanuunadan imika dadka ku cabanayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaga keenay inta hayana Allah ka dulqaado inteena kala ilaahay naga nabadgeliyo xanuunadan ama strong baa la yiraahdaa ama faalis sida Soomaalidu u taqaano rheumatismka curuqaha iyo waxyaabaha soo dhani waa xanuunada sida qaalibka ah ku batay maanta dalkeena ku badan sabab kasta Allah u keenay sababta Alluun baa iska leh ilaahay naga dulqaado dadka reer Burcana waa u baahan yihiin waxtar weyn bay soo kordhisay danahay maamulkii degmadana meelaha noocan oo kala ah ee ummadda populationka reer Burco u faa'iido gobolka Togdheer u faa'iido jamhuuriyadda Soomaaliland u faa'iido waa soo dhaweynayna waa baarigaynaa waa hambalyeynayna. xaruntan caafimaad ee dhaqaajiye ayaa ku taala xaafadda Afgooye agagaarka Dr. Aadan Mira iyo wasaaradda warfaafinta Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco.